السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا السلام أمد الصومالي الملك سادوني الدافية كجوكتان ومركلة جنال كاني صومالي ذا بولن ما انتو حانديونا فيديو كدوان كوي هوري أدنوغا برات أدنوغا براتين وانيغا أو حسنا أدنو سعود سينايو برنامجك مانتا waxaa barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay su'aalo isweydiin waxa su'aalaha weydiin doona cameraman-keena boqorada Soomaaliyeed ee Poland ku soo dhawaada haddana waxa uu wareejinayaa dhanka su'aalaha iyo boqoradan iyo su'aalaha weydiin doonto assalaamu calaykum asxaabta meel walba dunida taafeeda ka joogteen waan idin salaanay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada channelka Soomaalida Poland walaalkan xasan su'aalaha waxa kamid ah weydiin doono ugu soo horeeya xasan burburka Soomaaliya kadib ilaa hadda Soomaaliya aan xaaladaheeda aan ka dareemin inay soo kabanayso maxaad ka ogtaa wadanka Soomaaliya ama siyaasad ahaan ama wadanka dhaqaalihiisa iyo waxyaabihiisa idil wad mahadsan tahay boqorada siyaasadii Soomaaliya xilliyadii ka dambeysay burburkii wadanka waxyaabo badan ay isdaba martay oo isdaba socotay isbedel badan bay lahayd dawlado badan oo kala duwan oo meel gaar iyo kuwa caadi oo federaal inta way soo mareen dawladii kacaanka wixii ka dambeeyay siyaasadda Soomaaliya waxay ahayd siyaasad marna hoos u laabanaysa marna kor u kacaysa for example markaan soo qaadano dawladii dhexe waagi ee ka baxday meesha waxa soo galay dawlado ku meel gaar ah oo fara badan dawladahaas ku meel gaarka ah waxyaabaha ay lahaayeen waxa kamid ahaa kala qoqob bulsho safiican qabiil dhaqaale xumo dadkii oo baahi iyo abaaro iyo waxyaabo badan oo saas wax kaalmeyn oo hay'adda dibadda ka imaanay aysan jirin waa laga soo gudbay waxa la yimid xilli ay jireen hogaamiye kooxeedyo nin walba xereer oo wadan tahay oo qayb qabiilkiisa kamid ugu jirtay safiican maamulada iyo gobolada kale wadankana sidoo kale ay ahayn iyaga dhan markii laga reebo hal ama labo gobol oo ka jireen maamulo caadiya hogaamiye kooxeedyadaas waxaa meesha ka saaray maxaakimtii oo 6 bilood wadanka gacan ka duwan sidii wadanku aajir ku weysay safiican isla maxaakimtaas waxaa ka dhashay ururo fara badan oo qaarna dhibaato badan geysteen qaarna dheef badan dadka u lahaayeen safiican waxa laga soo gudbay urur dimadii inta badan awoodahoodii waa weeqmeen ama kuwii dadka u daneynaya ama kuwii dadka dilaya intaba waxa la galay dawlado federaal ah safiican maamul goboleed laftirkoodu waa sidii hogaamiye kooxeedyada ku dhow yihiin markii la fiirsho qaab dhismeedkooda safiican maamul walba wuxuu xiran yahay qabiil safiican madaxweyne waxa uu ahaa oday dhaqameed صح dadku waxay ku jiraan ilaa hadda waxaan dhihi karnaa waxay ku jiraan gacan waddan kooxeed dawladda dhexe ee federaalka ah ee wadanka ka dhisan way jirtaa oo wadanku federaal uu yahay dawlad dhexe uu leeyahay madaxweyne uu leeyahay ra'iisul wasaare uu leeyahay wasiir uu leeyahay baarlamaan wax dhan golihiisa sharciyada waxaan weydaysan yihiin safiican laakiin sharciyadii wadanku lahaa ee loogu talagalay dastuurkii qoraa waxaa malaysa inay ka awood badan tahay weli baashi qabyaaladda ahayd ee shaarka qabiilka loo adeegsanayo safiican for example madaxweyne markuu maanta tilaab qaado ama ra'iisul wasaare qaado ama golay sharci dejinta ay hadlaan waxa u malaysa inay toos u ataagayaan beel gaara ama qabiil gaara ama qof gaara oo u malaysa inay hadalkii ama wanaag ama xumaad wax hormaada ay soo jeediyeen inuu si gaar u taabanayo okay oo halshan waxaan u fahanay in ay dawladda federaalka ah bulshadii waxa ay ka aaminayso maadaama Soomaalidu ay ahayd mudooyinka ugu dambeeyay dad qabyaalad 4.5 dawladoodu ay ku xalaysan tahay horta cudurka ugu badan ee Soomaaliya hayo ay ka kicilaaday waa waxa la yiraahdo 4.5 safiican waa cudur virus dadka dhexdoodii galay safiican mudooyinka ugu dambeeyay waxaan dhihi karnaa dawladda Soomaaliya kabsashadii ay soo kabsatay inay 4.5 ku soo kabsatay 4.5 waxa malseen hadda laga soo baxayo way dhalinyaro wadankii qabsatay dhalinyaro wadankii ka talinayso wadankii wuxuu u wareegay dhanka kale safiican dhalinyarada laakiin wadankii iyo sharciga iyo dawladnimadii u adeegayso waxa jiro dhalinyaro badan ee ku awooda ayagana Soomaaliya oo mabda kala wato safiican
waddanka dhexdiisa dhib badan oo is-haystaa ka jiro si fiican waxa ugu badan laakiin oo waddanku ama kuwaan midna uga dhaqaaqi leh waa qabiil okay sidaas daraaddeed waxaan dhihi karnaa dowladdii dhexe kadib Soomaaliya marna way soo kabataa marna way laabataa waa saan insha Allah waxaan rajaynaynaa waddanka Soomaaliya ee dalkeeni ah aan u dhalanay inuu dib noogu soo kabto doono noo soo kabto ilaahayna waan ka baryaynaa annaga iyo nala midkaaba Soomaalida ay tahay waxaan kaloo ku weydiin lahaa xasano waddanka Poland maxaa kugu farxadda badnaa markaad soo gashay ama kugu la yaab ka badnaa waa laba su'aalood waddanka Poland waxa ila yaab badneed oo aad aan ula yaab waxay ahayd aniga waddanka Poland waxaan ku soo galay invitation qaab qaxootinimo ah waxaan ka soo baxay waddanka Malta si fiican Malta waa jasiirad aan lahayn baraf okay qabow sida qaarad sida waddankeena oo kale ku agdhowda kuleelka iyo dabeelaha iyo roobka camal waxaan ka soo degay waddankan abaar adii 2 saac habeenimo soo -30 ah barafku jilbaha ku tagay si fiican أنا waxaan surwaal iska caadi iyo kabo iyo dhar caadi oo qabowga shaqo ku lahayn markii barafkii aan arkayba meel iga xigta baasho ugu waayay baraf miya baad ma wan kala garan waay barafkii isaga dhaxlugay ilaa aan dhaqaaqo waayo si fiican wax badan ee Soomaalida markay qurbaha soo galeen waxyaabaha barafka dhacaya kala kulmaan ay ka mid tahay taas waxa igu farxad badneed waddankan intaan joogay aan waddankan markaan soo galay waxaan raashay shaqaab baan ku shaqeeyay waan shaqeeyay reer baa yeeshay masha Allah Soomaaliya reerkayga ka soo bilowday xaaskayga joogtay waan u dacwooday invitation badan iska dabuureeg badan ayaan galay maalintii ayada aan kula kulmay waddankan gudihiisa baa airport ka soo degtay maanta soo farxad badneed masha Allah ilaahay idin siiyo farxadina aad leenahay su'aasha kale oo ku weydiinaya waxay tahay waxaan Soomaaliya maadaama aad u fog aad moogtahay sida aad nooga dhawaajisay burburkii kadib maadaama Soomaaliya inta aad ku noolayd ee yareed waxaan ka weydiinaa Soomaaliya korma jecesha in aad ku laabato ama aad dib ugu laabato waddankaaga maadaama aad u dhalatay ee Soomaali aad waa su'aal fiican aniga waddanka waxaan moogahay muddo aad u fog 12 sano ah si fiican dhib u baan naga soo waday annaga dhan kaligay ma Soomaalidu qurba joogto dhan dhib ayaa soo waday si fiican horta marka koowaad ilaahay dhibkaas naga saaro amiin marka labaad aniga Soomaaliya maanta ma malaynayo inaan u laabanayo ayo waddanka dhibkii aan soo tagnay uu taagan yahay dhibkii maahan mid ka sii badan ay jiro si fiican laakiin xilligeed ay leedahay hadeer laakiin iyo haduu umalaynayo inuu laabanayo si fiican xasan su'aal kale ayaan ku weydiinaa maadaama aan hore barnaamij kale oo Poland laga diyaariyay aan ku aragnay in ay ku nool yihiin reero Soomaaliyeed ee aad u badan wiilal Soomaaliyeed oo reero gabdho waddankan u dhashay ku yagleeleen maxaa arintaas ahaan Soomaalida ka yihiin waddankan maadaama Soomaalida dad laga aqoonsay hadda waddankan ay ka yihiin aan ku noolnahay martida u nahay annaga dhan mabda nooca caruurta iyo ahlashan nololiyan maxay ka tahay wax jiro way jiraan rag badan oo Soomaaliyeed oo reer ka sameeyay waddankan runtii sida caadigaana gabdhaha waddanka u dhashay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka soo gashay sidii Soomaaliya reerka loo wada sameeyay jiray reeraha loo wada sameystaa masha Allah marka fiirisid wiilka iyo gabadhu si caadi isu soo heshiyaan si caadi wax soo qaybsadaan noloshooda wadaagaan way jiraan ilmo badan oo jooga oo aan la tiri karin hal iyo 2 3 iyo 4 aan ahayn masha Allah wiilashaas way jiraan dhalinyaro badan oo hadda reerahoodii haysta oo Allah xifdiyo reerahooda xifdista masha Allah waxa jiro kale to kuwa reerka ay kala tagaan reerku inuu ishaay inuu kala tago labada calaf waay si fiican Soomaalida dhexdeeda way ka dhacdaa ilmahaas waxa si gaar ah la socdaan ugana mid yihiin community-ga Soomaaliyeed ee waddankan joogo jaaliyadda ama Fundastada Soomaaliya sidoo kale waa ilmo waddanka u dhashay oo Polish ah laakiin si gaar ah waxa uu la xiriiraan jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo guddiga fulinta ee jaaliyadda
xasanow su-aal kale haddaan ku weydiiyo Poland dadka ku nool nolosha ay ku nool yihiin iyo markaad isku fiiriso wadamada Yurub ee hadda dariska wadanka amartada u nahay la ah ee Soomaalida ku nooshahay qab nolol ahaan maxaa u dhaxeeya Soomaalida bulshada xagga ku nool iyo bulshadan bal marti mar ma ku tagtay oo ma ka warhaysa xaaladahaas waan tagay uma badnayn laakiin si fiican markii nolol ahaan la yiraahdo Soomaalidu iska warhayda meel kasta joogto si fiican Soomaalida ku nool Yurubtan kaleeto horta waxa ku xiran qof kasta marka systemka nololeed uu ku jiro doo qofkii qof shaqaysta oo nolol iyo shaqo iyo deganaansho weyn haysta qofkaas waxa u maleysaa inuu yahay qof haysta nolol sare si fiican intan waa sidoo kaleeto nolosha qofka shaqeeya waa isku mid si fiican markii la fiirsho dadka qaxootiga ah ama welfare ka qaata ama waxyaabahaas oo kale ku saama dadka patientiga oo kaleeto way nooga fiican yihiin wadankan qofku waa inuu shaqaystaa xoogiisana ku soo saartaa si fiican waxa ugu fiican oo kaleeto dhanka maciishadaha ugu fiicanahay waxa kale ku kala bedelanahay systemka qaxootinimo okay wadankan Poland marka fiiriso qaxootigiisa waa sida wadamada sida qaaradaha kale America iyo la mid yahay wadankan qaxootiga taa waa soo gashay sharci qaadata khalaas adiga qofku waddanka u dhashay isku soo shaqalaysaa laakiin aniga hadda wadankan shakhsi ahaanteeda marka iska hadlo mid aan ku jeclahay waxay tahayba qofka inuu shaqadiisa iyo reerkiisa ilmihiisa oo xor u noqon karo maamul ahaan laakiin wadamada Yurub meesha ku leeyahay waa sida Mareykan oo kale la mid tahay nolol ahaanta qofku waa qof wax kasta oo sameynaysa ku dhisanta ku besgaraysan tahay adiga iyo shaqadaada hadda waxaan dareemi karnaa in ay ku faraxsan yihiin bulshada ku nool wadanka Poland aad iyo aad hadda ku sugan aad iyo aad insha Allah waxaan rajaynaynaa kulanti dambe oo xiiso leh asxaabta qiimaha iyo qaayaha naga mudan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنرك سومالي Poland.